magacii anoo ku magac dheeray Idris Cali Maxamed oo aan degan xaafadda Guulwade u qaaday koobka biskiilada tartamada shanta xaafad aad iyo aad aan u faraxsanahay magacayga waa Cabdiwali Diiri Cabdullaahi waxaa ka socda xaafadda Caalanley waxaana kala gaaray kaalinta labaad aad iyo aad ugu faraxsanahay kaalinta labaad sababtoo ah saddex koob la qabtay saddexdii faas wana ka noqonay tan kaalin labaad daaga galna waa Ilaahay maadiisa ayadana Cabdisalaam Daayir Xayla oo ku magac dheer oday wax problem ma la tartanka qof un baa qaadi lahaa muhiimadda saddexda ugu horeysa way saddexda ugu horeysana waa ka qayb galay tartanka xigana waxa filayaa inaan lambarka koowaad aan galo qaar kamid ah gudoomiyaasha xaafadaha Kismaayo ayaa ka hadlay dareenkooda bismillaahir rahmaanir rahiim hambalyo maanta farxadii maanta tartankii 15 May oo aan ku beegnay maalinta tartanka baaskiilada oo Kismaayo aan ka sameysannay laakiin waa maalintii munaasabadii ururka dhalinyarada maanta waxa ku guuleystay xaafadda Guulwade anoo magaca afka ku hadlaayo asagoo hadda hool leh Guulwade maanta waxay soo hoydeen guushii baaskiilada sakin ana noqday qofkii labaad wuxuu noqday waa Caalanley waa Wacdi Maxamed Diiriye oo xaafadda Farjana gudoomiyaheeda ah waan u hambaleynayaa tartanka maanta meesha ka dhacay xusuusan dhalinyarada inay waxyaabaha noocaas ka qayb qaataan ama bootimaha ama oratanka ama dabaasha uguntana waxa gashay xaafadda la dhaho Caalanley inta kalena waxaan u rajaynaynaa fasalka dambe inay dhamaatir doonaan anigoo ku hadlaya ururka dhalinyarada Jubbaland afkooda waxaan marka hore u mahad celinayaa TV-ga Jubbaland oo qaban qaadiyay barnaamijkan iyo Cabdisamed iyo tiimkiisa oo ayagana xaqiiqdii laantooda ay suurtagal lahayn tartanka baaskiilaha waxay ahayd inay dhacdo horaan laakiin 15 May baa ay soo jeediyeen Cabdisamed iyo tiimkiisa in lagu aadiyo farxad waxa noo ah oo aad u ballaaran in maanta 25 sano ee Soomaaliya burbursanayd waa maalintii koowaad oo 15 May ay ka dhacayaan gobolka Jubbada Hoose ciyaarihii kala duwanaa ee isboortiga iyo xafladii ururka dhalinyarada horta ay dhacayso waa maalintii koowaad horta la socda qodobka labaad waxaan u mahad celinayaa TV-ga Jubbaland Ilaahay baa mahad u sugnaatay meel walba oo taagannahay iyo weel walba oo la socdo iyo ruux kasto dhaqaaqa iyo wax kasto dhacaya sida aad moodeen madaalayaal inay u yihiin oo mar walba ay nala garab taagan yihiin wixii la qaban haya gobolka Jubbada Hoose